وسهلا. انا عارف انا بوسمان كابتن اسامه. ايوه. وانا maareeyaha dekedda muqdisho danjire mudane maxamed cali nuur amiiriko ayaa maanta kormeer shaqo ku tegay xafiiska maamulka waaxda badda si uu u kurgalo habsami u socodka howlaha soo xirashada maraakiibta imaanaysa dekedda muqdisho. kormeerkan ayaa waxaa ku weheliyey maareeyaha kabtan cabdulqaadir maxamed cabdi oo ah jiif beeloodka dekedda iyo cabdulqaadir xasan maxamuud oo ah madaxa xafiiska maamulka waaxda badda. mas-uuliyiintan ayaa doon kaga baxay gudaha dekedda iyagoo soo indhe-indheeya xaaladda maraakiibta taagan bannaanka dekedda iyo habraacyada lagu maareeyo soo gelista maraakiibta. maareeyaha ayaa gaaray markab weyn oo sugayay inuu kusoo xirto dekedda isagoo markabka ugu koray jaranjaro gaar ah si uu ula kulmo kabtanada iyo mas-uuliyiinta ku holan soo xirashada maraakiibta. waxa uu halkaasi kaga dhageystay warbixino la xiriira howlaha socda amniga iyo habsami u socodka adeegyada dekedda. kormeerkan ayaa muujinaya dadaalka maamulka cusub ee dekedda muqdisho ay ku xoojinayaan shaqooyinka dekedda, dardargelinta adeegyada iyo hubinta habsami u socodka ganacsiga badda ee dalka. kabtan cabdulqaadir maxamed cabdi ayaa maareeyaha uga warbixiyey shaqada adag ee habeen iyo maalin u hayaan dalka, gaar ahaan hagista iyo soo xirashada maraakiibta soo gaarta dekedda muqdisho. magacayga waa dibcelinaa kabtan cabdulqaadir maxamed cabdi. waxaa tahay maareeyihii ugu horreeyey xilligii dowladdu kadib maareeya badda oo saan u kacsan na soo raaco oo arko shaqada aan qabanno. soo dhawaaw, waa ku hambalyeynaa insha allah. tan kale wixii aan u baahannahay iyo dekedda horumarkeedii iyo wixii kaloo lagu zaa'idin karo waan u baahannahay. maareeyaha dekedda muqdisho danjire mudane maxamed cali nuur amiiriko ayaa sidoo kale ka warbixiyey ujeedka kormeerkiisa iyo muhiimadda ay leedahay joogtaynta kormeerada shaqo ee lagu xaqiijinayo adeeg hufan iyo horumar joogto ah oo dekedda laga sameeyo. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aniga maanta sharaf ayay tahay inaan mataqaanaa kabtan cabdiqaadir iyo hal masaga cabdiqaadir iyo khaliif aan la soo raaco oo aan soo arko habkay u shaqeeyaan. sababtoo ah waxaa waaye dekeddan shaqaday hayaan waa shaqooyinka ugu muhiimsan waaye. markab kasta markuu imaanayo waa inay soo hagaan, ay soo gelbiyaan, ay ilaa ay ku xerato marka ku xerto maxaa la dhahaa beesiga ay la socdaan. marka shaqo adag waaye, shaqo waxaa waaye loo baahan waaye, shaqo muhiim waaye. waa u mahad celinaya, abaalkooda lama gudi karo. dekedda shaqadeeda hadday iyaga ahayn waxba lama shaqan lahayn. marka kabtanka iyo asxaabtiisa way ku mahadsan yihiin. anagana waxaan rabnaa dadweynaha Soomaaliyeed inay arkaan howsha laga hayo dekedda inay ahayn wax sahlan. marka waxaan leeyahay aad baa mahadsantihiin.